gabadhan dhalinyarada ah oo aad u qurux badnayd ayaa ku dhibtootay hurdada, laakiin qolkeeda hurdada ayay kaamiro ku xirtay. subaxii markii ay soo kacday ee ay fiirisay kaamiradu waxa ay duubtay, waxay aragtay arrin kadis ah oo naxdin leh. laakiin daawad haddii aad muslim tahay waxaan ka codsan inaad muuqaalkan like saarto siina share garayso si uu gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay uga digtoonaadaan arrintan khatarta ah. qofku inta uu hurdada ku jiro waxa uu la kulmaa arrimo la yaab leh. waxaa laga yaabaa inaad qarowdid, hurdadii ku dhibtootid, marmarka qaar aad aragtid waxyaabo neefta kugu celinaya. gabadhan in muddo ah ayay hurdada ku dhibtoonaysay, xanuunno aysan garanayn ayayna aragtay. mar walbo ay hurdada ka soo kacdana walwal ayay la kulmaysay, hurdadii macaankeedaba waa ay weysay. mar walbo ay hurdo madaxa culays ayaa ka saaran, markay soo kacdana madaxu waa uu xanuunayaa. markay in muddo ah la dhibtoonaysay arrintan kadib waxa ay go'aansatay inay ogaato waxa sidan u galaya haddii ay yihiin wax la arki karo. mid ka mid a kaamirooyinka casriga ah ayay soo qaadatay, qolkeedii hurdada ayayna ku xiratay, kaamiradiina telefoonkeeda ayay ku xiriirisay. haweenaydan waxay jeclayd inay tarbiyeyso xayawaanada, waxaana u joogtay oo ay tarbiyeysan jirtay yaanyuur. sida cunug ay dhashay oo kale ayay ugu dadaali jirtay xanaanadeeda, wayna weysay xal aan ahayn inay is-ilaaliso. maxaa yeelay ayadoo fiican ayay seexanaysaa, waxayna soo kacaysaa ayadoo madaxu xanuunayo. keligeed ayay degan tahay qolkan, ayada iyo yaanyuurteeda ayaana seexdaan. laakiin marna kuma aysan soo dhicin inay yaanyuurtu sabab u tahay dhammaan xanuunkan iyo dhibaatadan ay dareemayso. arrintan naxdinta leh waxa ay dhacday subaxii markii ay hurdada ka soo kacday oo ay furtay fiidiyowga ay kaamirada ilaaladu duubtay. waxay aragtay in yaanyuurtaanu habeenkii oo dhan ay madaxeeda soo fadhiisato, kadibna ay tinta madaxeeda ku taalla cidiyaheeda ku jiijiido habeenkii oo dhan inta ay ka soo kacayso subaxii. muuqaalkani waxa uu digniin u yahay qof walba oo xayawaanaadka tarbiyeeya oo gurigiisa ku haysta dhibaatooyin noocan oo kale ay u geystaan haddana aan ka warqabin. walaal ugu yaraan 2 qof oo asxaabtaada ka mid ah u sheer garee muuqaalkan.